قال ربي جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. walaalkay qiimaha badan oo walaashada sharafta leh su'aasha aan ku weydiinayo maanta waxa ay tahay habeenkii markii uu ku soo galo ma waxaad ku dhamaysataa waqtigaada chatting, sheeko, xan, telefoon, mise xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala, mise qiyaamul layl, mise qur'aan akhris, mise hurdo? allahu akbar. xadiis uu warinaya abaa hurayra sheekh albani uu saxiixiyey في صحيح الجامع. نبي وحا أوليه عليه الصلاة والسلام: ما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كانت عليه تراه. مجرو قف فراش كيسة تغي وسرتي سسوء آذي هدي أوتغي مركاسني آنا إلهي حسن هبين كيبا قوصو قلي إلهنا ماذا حسن فدقا أما متقانا يجيفك أما وقتقا قليسي هبينكا قصوان مري wuxuu kugu noqonayaa xasra, murugo, nuqsaan, faa'iido darro, wax uu ku adkaga faa'iideysan ma laha. idan waxaa loo baahan yahay habeenkii xitaa inta aadan seexan inaad ilaahay xuso subxaanahu wa tacaala. markaad soo kacdane nebigu wuxuu oran jiray: alxamdu lillahi aladii caafaanii fi jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrih. waxaa mahad iskale ilaahayga subxaanahu wa tacaala anoo bad qaba, anoo caafimaad qaba isoo toosiyey, oo waradda calaya ruuxii bar labaad nolosha igu celiyey, oo waadina lii bidikrihi in aan ageen mar labaad inaan ilaahay xuso ilaahayga jaanis ii siiyey. badanaa qof seexday oo soo kacay asagoo dhiig kusoo booday, dhiig kar, diabet kusoo booday, wadna garaac kusoo booday, xanuun kusoo booday, amaba saa ku tagoo dhintay. haddii inta aad seexatay aad soo kacday aad ilaahay xusi weyda ka waran. haddii marka aad seexanaysay aadan ilaahay xusin ka waran. haddaad habeen iyo maalinba khaflad aad ku qaadanaysa ka waran. war miyadan ilaahay jecleen subxaanahu wa tacaala? war miyadan waqtigaada ilaahay ugu mahad celinaynin? war miyadan janno iyo doonaynin khayr? miyadan doonaynin ilaahayga subxaanahu wa tacaala koonkan iskale in aad la kulanto jalla sha'nuhu? miyaadan dooni ilaah subxaanahu wa tacaala inuu ku waafajiyo waxyaalaha uu jecel yahay? waxaad arkaysaa qof ay salaad subax u joogto oo iska jiifa. war ma og tahay qofka salaad subax u joogta ee jiifa in uusan ilaah subxaanahu wa tacaala mulkigiisa waxba ka nuqsaaminaynin? qofka tukanaya soo kacayna in uusan ilaahay waxba u ziyaadinaynin. laakiin waxaad ogaataa qofka uu ilaahay khayrka waafajiyey, qofka uu ilaahay salaadaha waafajiyey, qofka ilaahay waafajiyey xuskiisa, qofkaasi inuu ilaahay jacaylkiisa uu tusinayo, ilaahay uu leeyahay qofkaasi wanaag iyo khayr baan ku waafajiyey because waan ku jeclahay. ilaah subxaanahu wa tacaala markuu wanaag ku waafajiyo that means inuu ilaah subxaanahu wa tacaala ku jecel yahay, ee ma aha inaad ilaahay adigu u kordhinayso. wallahi haddaad xuska ilaahay uu ku waafajiyo, salaadaha uu ilaahay ku waafajiyo, qiyaamuleylka ilaahay uu ku waafajiyo, wanaaga uu ilaahay ku waafajiyo, walaa calaamad ku tusinaysa inuu ilaahay ku jecel yahay. waxaanan rajaynaa biidni illaahi alkariim xusna alkhaatima inaad meel fiican ku dambayso. jazaakum allah. salaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.